ciidankan oo hogaaminaya taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa howlgallo looga hortagay qaadka soo galaya magaalada waxay ka sameeyeen deegaano iyo waliba degmooyin hoos yimaada gobolka Bari ujeedada ayaa ahaa sidii loo dabar goyn lahaa qaadka sharci darrada ah ee lagu soo galinayo gobolka si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus howlgalka waxaa taliyaha ku helinayay saraakiisha ciidamada booliiska ee gobolka waxaana mid loo galay goobihii lagu tuhunsanaa in qaadkaasi lagu iibinayay howlgalka ayaa intii uu socday sidoo kale waxa lagu soo qabtay qaadka iyada oo lagu gubay goob fagaara ah waxgaradka deegaanka ayaa ciidamada iyo saraakiisha gobolka uga mahad celiyay hawsha ay qabteen ee lagu xakameeyo qaadka taliye waxaan ka codsanaynaa dabargoynta qaadka in laga dhabeeyo oo aan la arag oo cabsida qaadku badato kuwa wata cabsidoodu badato oo inuu ka torbaan yahay la dareemo oo saasa ka torbaan buu ku noqday min baa maalada wuxuu lahaa garowe iyo Boosamaha wadanka qaadku waa yaacaya wali waxaan ka codsanaynaa qaadka dabargoynta qaadka in laga dhabeeyo madaxweynuhu joojinta uu joojiyana inaan waligiisba la furin baan soo dhaweynaynaa inaan waligiisba la furin qaadka oo taliya madaxweynaha gaarsiiso aad baan taliya kugu hambalyeynayna adiga iyo ciidanka wado oo nabadgelyada oo juhdiga badan maanta soo galiyay haddana sii wadaaya hawsha aad baan ugu garab taaganahay wixii information wixii talaana way iswadaarsanayna intaasi kadib waxaa goobta sidoo kale ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud waxaana uu digniin u diray dadka qaadka ka ganacsada iyo kuwa soo gelinaya waxaan u maleynayaa maanta waa maalin jimco ah oo nasniin lagu jiray oo ay dadku nasanayeen laakiin anaga nasniin nooma ah waxay noo tahay maalin walba inaan shaqo u taaganay waxaan u nimi oo u soo marnay Kalabayr Falluuja iyo Wardheer oo hadda taaganahay waxa ugu xun oo fayraska coronavirus uu wato waa qaadka waxaan u sheegay bulshada inuu xanuun cudurkan coronavirus uu qaadku ka mid yahay asoo ka xuno maandooriye iyo wax la mid yahay haddana cudurradaaba ka sii daran oo bulshada la rabaa inay fahanto dawladdu waa joojisay dalka ma soo gali karaa la yiri geedku joogaba waa u gali doonaa reer Wardheer waxaan leeyahay reer Kalabayr iyo Falluuja way soo aragnay ininkana waa in maqalay warkiina dheer haddii awalba waxa la yiri war meel beer Wardheer baa ahaydeen warkiinu aad buu dheer yahay nimanka ugu war fiican baati sababtoo ah hadda taahana la ka qabto annaga diyaar waxaan u nahay mar walba inaan in garab taaganahay inaan shaqeynayno inaan habeen iyo maalin bayna iman doono ciidamada madaalayaasha arkaysan iyo saraakiishaas waxa weeye saacad walba way shaqeyn doonaan waa in ku soo noqon doonaa aqbali mayno waxa dadka iyaga jidka ka leexinaya aqbali mayno waxay argagixisadu ku dhuumato annagu in badan waxaan la diriireynaa shabaab iyo Daacish waxa noo soo sadeexeeyay dadka maandooriyaha ku lugtay iyagana si kuwa la mid ah la dagaalami doona waxa ogaataan reer Wardheerow waxa weeye degmo cusub aad tihiin tuulo cusub aad tihiin degmana wuu gudbi doontaan waxa leen ka rabaa wada shaqayntii dawladda indhaha iyagii baad tihiin waxaan se uga digaynaa dadka qaadka ka shaqeynaya homooda iyo Falluujo iyo Kalabayr in wax lagu qarin karo ballan waxa ay gobolka Bari meel uu yahay in cagaha dhigo inaana ka istaagi doono meel walba uu gali doono cagtaan marin doona kana aqbali mayno hadda waxaan gubnay qaadad iyo inta aad arkaysaan laakiin waxaan tagi doonaa qofka qadabaan qaadi doonaa galabta hadii Allah kan gadaya oo guriyaha soo galaya laakiin reer Falluujo inuu ku xataa noo soo galinayna intaas aynu ku filan cidna annaga inay hayna diyaar weey mar walba inay taagana waxaan kaloo leeyahay ciidamada meel ay joogaanba waxa la rabaa inay talabada ka qaadaan baa la rabaa ciidamada gobolka Bari dhamaantood waxaan amreynaa saacad walba iyo meeshii taagan yihiin inay qabtaan baa la rabaa qofkii askari oo isagu ku xadgudbana waajibku leeyahay la marinayo looga soo roonaan maayo waa ka daraan doona qofka shacabka ah maalmihii u dambeeyay waxa gobolka Bari ka socday oo ciidamada amniga ay wadeen howlgallo isugu jira mid amniga lagu xaqiijinayo iyo sidoo kale mid looga hortagayo qaadka iyo waliba waxyaabaha maanka dooriya xasan haykal SBC Boosaaso